iyadoo maalmo ka hor ay soo baxday in hakada geliyay qayb ahaan dhaqaalihii dawladda Mareykanku ay sii jirtay ciidamada xoogga dalka ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu yimid goobtan oo ah xarunta dhexe ee difaaca dalka waxaana uu kulamo la yeeshay shiraakiisha kala duwan ee ciidamada militariga Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in hakinta dhaqaalahaas aanay wax saameyn ku yeelan doonin ciidamada xoogga dalka isagoo sheegay in dhaqaalahaas ay bixi doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan cadeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dawlad ahaan waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba 500 waxaan ku dadaalaynaa in hakadkaas la geliyay aysan qofna aysan taaban oo aan mushaahar hadday tahay wixii kale oo looga baahan yahay oo agab ah dawladdu wax alla wixii karaankeeda ah inaan keenno waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno annagu inaan wax qabsanno dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin marka haddii ay sheegeen dhaliilo annagaana laga rabaa dhaliilahaas inaan saxno maxaa yeelay qof ku heelan oo diyaar ku ah inuu gacan ku siiyo waa inaad iska ilaaliso waxyaabaha keeni kara shaki inaad iska ilaaliso madaxweynaha ayaa intii uu joogay xaruntan wasaaradda gaashaandhigga waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay saraakiisha ciidamada kulamada qaar waxay ahaayeen kuwo albaabadu u xiran yihiin oo looga hadlayay arrinta xagga habdhaqanka ciidamada iyo howlgallada qorshaysan ee hor yaalla ciidamada militariga kuwaasoo dhanka ah dhaqdhaqaaqa hubeysan ee al-shabaab madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqaalaha ugu badan iyo waqtigiisa ugu badanba uu gelin doono ciidamada taasoo ah ahmiyadda madaxweynaha ay u leedahay dhismaha ciidanka Soomaaliya waan isku tashanaynaa waana u wada istaagaynaa difaaca dalkan hawlgalladan bilaabanayana insha Allah waa ku guuleysanaynaa waana isu diyaarinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo anigana waqtiga inta badan waxaan siinayaa ciidanka waqtiga inta ugu badan dhaqaalaha inta ugu badan ciidankan siinaynaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka xagga dagaalka ilaa dalkan aan ka xoreynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka xarunta wasaaradda gaashaandhigga magaalada Muqdisho